waxaan maanta idinku yeeray inaan idinla socodsiino arrin runtii xaggayaga moogtahay naxdin leh oo ah in Puntland laga soo saaray lacag been abuura sidaad ka warhaysaan tan iyo markii dawladda dhexe 1991 ay dhacday waxaa socon jiray lacago been abuura oo hadda meel laga soo sameeyo hadda oo dawlad rasmi ah wadanka ay ka dhalatay oo hay'adihii iyo shuruucdii dalku ay dib u soo laabanayaan oo ay taabagelayaan dhaqankii dawladnimada iyo xurmadii shuruucda dalka waa nasiib darro inay wili soo baxdo in lacag la been abuuro oo siiba wiliba meesha laga been abuuray ay noqoto Puntland oo ka mid ahayd tiirarka muhiimka ah oo dawladda federaalka ah iyo dhismaha dawladda maamulka federaalka ah oo dawladda cusub oo Soomaaliya arrintaas waxay ka hor imaanaysaa dhaqankii dawladnimo oo bangiga dhexe uu moogtay hogaamiyaha ka ahaa oo la rabay in ay lagu dhaqmo shuruucda iyo nidaamka dawladeed oo bangiga dhexe uu hogaaminayo xagga lacagta waayo bangiga dhexe kaliya loo ogol yahay inuu lacag sameeyo lacagtaas samaynteedana juhdigeedii iyo howlaheedii waa socdaan oo waxaa dawladda dhexe iyo bangiga dhexe iyo hay'adaha adduunka oo IMF-ta ugu horeyso muddo baa laga shaqaynayay sidii dib loogu habeyn lahaa lacagta shilin Soomaaliga ah oo hadda xogaa dhibaatooyin ay ka jiraan intaas waxa ka sii daran heshiisyaha wax lala galay nidaamka adduunka oo IMF-ta iyo ay hogaaminayaan adduun weynahana ma ogtahay nidaamka maaliyadda adduunkana laga warhayo oo Soomaaliya lagu taageerayo inay nidaamkeedii xagga lacageed ay dib u dhisto oo markaas markay dib u dhisto oo si discipline iyo nidaam leh ay ku dhaqanto ay gaarto marka dambeeto in laga cafiyo deymanka faraha badan oo markay ugu yartahay gaaraya ama kaba badan 6 bilyan oo dollar oo haddii aan laga cafin Soomaaliya ayaan mustaqbal dhaqaale weligeed yeelan karin socon karin dhaqaale ahaan iska bixin karin deymankaas sida kaliya oo laga bixi karaan ay tahay in nidaamkan dawladaha lagu la heshiiyay hay'adaha caalamiga ah in si adag loogu dhaqmo oo dawladda iyo bangiga dhexe iyo dalkoo dhan si adag ugu dhaqmaan oo markaas deyntaas laga cafiyo nidaamkaas waa nidaam socda lacag kasta oo la sameeyo tanuna ma ogtahay waxay dhaawacaysaa ma ogtahay heshiiskaas la galay khatar bayna u keenaysaa mustaqbalkii wixii heshiisyadii lagu galay wadanka dhaqaalihiisa lagu hagaajin lahaa waxaa socda oo aan wadnay in shilin Soomaali la soo daabaco tayo leh oo bangiga dhexe uu sameeyo oo la isla ogsoon yahay oo adduunku ka warhayo oo sicirkiisa iyo qiimihiisa iyo inuu ku dhaqankiisa iyo wuxuba ay yihiin wax si fiican looga fakiray dhaqaale ahaan iyo nidaam ahaanba oo wanaag keeni kara ummadda waxaan ku boorinaynaa lacagtaas hadda Puntland laga sameeyay iyo lacag kasta oo si sharci darro lagu sameeyayba dadku inayan aqbalin dadku inay diidaan inuu nin warqada soo samaysto oo dadka kaga iibsado xoolihiisa iyo moogtay hantidiisa xalaasha ah oo shaqaystay kaga iibsado ama uu kaga qaato waxa way dadku waa inay diidaan wax garadka baac mushtariga kulli waa inay moogtay ay diidaan